sheekh jamaacada ka mida wuxuu codsaday faatixada inaan u akhrino muraadaan leeyahay uu yidhi marka faatixadaan marno ilaahay muraadkiisa khayra ilaahay uu sahlo الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد خطبة ولا ريال وحكاد ليسي سلعة مغليسين لوضع قيبود وخطبة بعد لسعتين حجك أهمية أوليه هي أحكام تيسا maadaama hadda aanu ku dhex jirno mawaasimtii iyo bilihii xajka maadaama aanu ku dhex jirno xujaajtuna ay isku diyaarinayaan aaditaanka xajkii waxaanu marka rabnaa wax yar inaanu kala faa'iidaysanno bal qiimaha xajka uu leeyahay iyo qaabka loo xajiyo axkaamta iyo fiqhiga xajka inaanu wax yar kala faa'iidaysanno in sha allahu tacaala xajku walaalayaal wuxuu ka mid yahay cibaadaadka qadiimiga ah ee soo jireenka ah ayuu ka mid yahay cibaadaadka qaybo ka midana ummaddeenna oo muxamediyada ah ayay khaas ku tahay cibaadaadka qaarna waa cibaadooyin qadiimi ah ilaa intii ummadu ifkan ay jiri jirtay cibaado la soo wadi jiray marka xajku wuxuu ka mid yahay cibaadaadka qadiimiga ah ee ifkan markii ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadihii inaga naga horreeyey iyo ambiyadii iyo rusushii ka horreeyey nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaa intaasaa xajku uu soo socday sidaas awgeed a'immadu waxay yidhaaheen iyo culimmada islaamku maa min nebiyin ilaa waqad xaj nebi ilaahay soo diray ma jiro ilaa wuu xajiyey jamiicu alambiyaa wa jamiicu rusul dhammaantood waxa ay xajiyeen beytka ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadaa way wada sameeyeen taasoo ku tusinaysa ahmiyadda iyo qiimaha cibaadadani ay ku fadhiso maa min nebiyin ilaa waqad xaj yacni hadalkaa culimmada yidhi waxaa ka mid ah abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa nihaayat اlmaطlab waa kutubta shaaficiyada kutubtii ugu horreysay oo la qoray oo la alifay ayuu ka mid ahaa nihaayat اlmaطlab wuxuu ku yidhi abulmacaali aljuwayni ee fuqahada waaweyn ka mida maa min nebiyin ilaa waqad xaj nebi dunidan soo maray iyo rasuul dunidan soo maray ma jiro ilaa wuu xajiyey waxaa ka sugnaaday hadalkaas abulmacaali aljuwayni uu nihaayatulmadlab uu ku yidhi waxaa xoojinaya aahaar iyo axaadiis nabiga ka sugnaatay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa hadalkaa xoojinaya waxaa ka mid ah xadiiskii tabaraani ee mucjamu lkabiir uu ku wariyey biisnaadin xasan waa xadiis isnaadkiisu uu wanaagsan yahay ee nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku yidhi sallaa fii masjidi اlkhayfi 70 nebiya minhum muusa وكأني أنظر إليه وعليه عباءتان waxaa طبراني uu ku wariyey معجم الكبير ee نبigeena صلى الله وسلم وبaaرك عليه uu yidhi masjidka masjidulkhayf la yidhaaho ee ku yaalla goobta mina ee maalmaha dhagax tuurka ah la joogo iyo habeenada yacni lagu hoyanayo meesha mina masaajidka ugu khayr badan goobaha mina waxaa ku tukaday uu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi 70 nebi ayaa masjidkan ku tukatay uu yidhi rasuulku salى اllahu calayh wasalam waa masjidka mino ku yaalla ee loo yaqaano almasjid اlkhayf masjid اlkhayf masjidka loo yaqaano waa goobaha maalmaha dhagax tuurka la joogo masaajidka lagu tukado masaajidka 70 nebi ayaa ku tukatay uu yidhi rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi minhum muusa 70 nebina waxaa ka mid uhuu yidhi nebiyullaahi muuse ayaa ka mid uhuu yidhi rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayh fakaأnnii anduru ilayhi wa calayhi cabaa'ataan waxaad moodaahu yidhi rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi inaan hadda fiirinayo
oon arkayo nebiyullaahi muuse oo labadiisii go' wata oo mino jooga oo dhagax tuuranaya oo masjidulkhayf ku tukanaya hadda inaan u jeedo ayaad u malaysaa ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam oon arkayo nebiyullaahi muuse oo laba go' oo cadcad oo waaweyn wata oo dhagax tuurkii samaynaya oo xajinaya inaan hadda arkayo oon u jeedo ayaad u malaysaa buu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka sidaasu wuxuu u yahay cibaadadan xajku cibaado aad u qiimo badan ee ambiyadii iyo rusushii laga bilaabo nebiyullaahi aadam ilaa laga soo gaaro nebigeenna moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayhi cibaado ay wada samayn jireenu taasoo ku tusinaysa cibaadadani cibaado aad yacni ahmiyad weyn u leh inay tahay xajka marka fadaa'ilkiisa iyo qiimihiisa waxaa ka mid a xajka nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku tilmaamay maalintii ama habeenkii dunidan aad ku soo biiraysay oo hooyada ay ku dhalaysay sidii aad dembi ka ahayd ayaa dembi ka noqonay haddaad soo xajisid xajkaaguna uu noqdo waddadii saxda aheed ee sharciga ah aad marsiisid xoolaha aad ku soo xajinaysana xoolo xalaala ay yihiin dembigii waxaad ka mid noqonee habeenkii ama maalintii hooyadaa ku dhalaysay sidii aad dembi ka ahayd laa sagiira walaa kabiira dembigii oo dhan ayaa lagaa dhaqahay lidaalika nebigeenna salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi arrinkaa wuxuu ku tilmaamay xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen man xaja falam yarfuth walam yafsuq rajaca ka yowmi waladatu ummuh qofkii soo xajiya xajka dhexdiisana wax dembiya iyo faasiqnimo iyo aflagaado aan ku samaynin wuxuu dib ugu soo laabtaa waddankiisii maalintii ama habeenkii hooyadii dhalaysay iyadoo la mid uu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh isagoo la mida صaxiifatuhu صaxiifa bayطaa laa denba laa sagiira walaa kabiira wuxuu waddankiisa dib ugu soo laabtaa isagoo saxiifaddii acmaasha xuxun loogu qori jiray warqaddii acmaasha xuxun ee dembiga loogu qori jiray iyadoo caduu soo laabana wax dembi aan ku qornayn wax dembi ayadoon ku qornayn ayuu soo laaban haddii xajkiisu uu yahay xaj uu waafajiyey nidaamkii sharcigu u jideeyey ilaahay dartiina ikhlaas ay ka tahay xajka uu soo xajiyey ee waa xaaji ha lagu yidhaaho aysan ka ahayn xoolaha uu ku soo xajinayana ay yihiin xoolo uu ka fiirsaday oo xalaal ah nebigeenna salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa xadiiskii imaam muslim uu saxiixiisa ku warinayay ku sugnaaday min xadiisi camr bn اlcaas xadiiskii camr bn اlcaas camr bn اlcaas wuxuu ahaa nin macruufka ah dhulkan xijaas ayuu ahaa intuusan soo islaamin nin dagaalyahan uu ahaan jiray oo dilay ah dhiig badanna daadiyey intuusan soo islaamin camr bnu اlcaas ilaahay wuxuu ku soo hanuuniyey islaamka maalin maalmaha ka miduu nabiga u yimid salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu rasuulka ilaahayow waxaan dooni an ubaayicaka calى اlislaam islaamnimada inaan ballan kugula galo inaan ku sugnaanayo ilaa aan ka geeriyoodo diinta islaamka aan ku jirayo ayaan rabaa inaan ballanqaad aan sameeyo marka wuxuu yidhi camr bnu اlcaas wa ashtarit shardiina islaamnimadeyda ku xihan tahay yidhi islaamnimadeyduna hal shardi ayuu ku xihan yuu yidhi camr bnu اlcaas nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi bima tashtarid maxay tahay shardiga aad ku xihayso islaamnimadaada nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh camr bnu اlcaas markaa wuxuu ku yidhi an yakfira lii rabbii aw an yukfara lii shardiga aan ku xidhayo waxaa weeye wixii dembi aan soo maray oo dhan in ilaahay iga dhaafayo inaad ilaahay i weydiinayso nin dilaayuu ahaa nin mashaakil badan uu ahaa shardiga keliya wuxuu yahay ma ii sheegaysaa wixii aan samayn jiray oo dhan inaan waxba la ii qabanayn shardigaasaa ku xidhan islaamnimadeeda nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi amaa calimta ana alislaama yahdimu maa qablah wa ana alhijra tahdimu maa qablaha wa ana alxaja yahdimu maa qablah camr bnu اlcaasow sow ma ogid saddex arrimoodba inay dembi dhaaf weyn ay keenaan oo qofka wax dembiya aan loo qabanayn saddexdaa arrimood hadduu qofku ku dhaqaaqo
kow sow ma ogid camr bnu lcaasow ana alislaama yahdimu maa qablah towxiidka qofku hadduu ku dhawaaqu soo islaamo wax dembiya in ilaahay uusan u qabanaynin dilaa hadduu ahaan jiray khamriyacab hadduu ahaan jiray zaani hadduu ahaan jiray wax walba uu samayn jiray oo dhan xalay dhalay inuu ka noqonayo sow ma ogid camr bnu lcaasow towxiidkanaa ku dahiray towxiidkanaa islaamnimada ku soo gashay sow ma ogid isaguba inuu dembi dhaaf yahay waxba aan lagu qabsanayn amaa calimta ana alhijrata tahdimu maa qablahaa sow ma ogid camr bnu islaamow camr bnu lcaasow qofkii u soo haajira magaalada madiinatu lmunawara hijradu inay dembi dhaaf tahay sow ma ogid amaa calimta ana alxaja yahdimu maa qablah sow ma ogid xajkuna in qofka uu ka dhigayo dembi la'aan dembi la'aan inuu xajku qofka ka dhigayo haddaad soo xajiso camr bnu lcaasow sow ma ogid saddexdaa arrimoodba inay dembi dhaaf ku yihiin waa towxiidkood ku dhawaaqday waa hijrada magaalada madiina oo timid ood u soo haajirtay waa xajka soo socda haddaad soo xajiso saddexduba inay dembi dhaaf yihiin sow ma ogid camr bnu lcaasow shardi uma baahna ayuu ula jeedaa nebigu salى اllahu عalayه wasalam shardi uma baahna haddaad islaamnimada soo gashid islaamnimadu waxay burburinaysaa wixii dembi ah oo qofkaa ka horreeyey sidaasoo kale waxay xajkuna wuxuu baabi'iyaa wixii dembi ah oo xajkaa ka horreeyey o dhan ayuu baabi'iyaa u yihi nebigu salى اllahu wslama wbaaraka calayh nebigeenna salى اllahu wslama wbaaraka calayh waxaa la weydiiyey ayu lacmaali afdal camal ilaahay loogu dhowaado yaa ugu fadli badan nebiga salى اllahu wslama wbaaraka calayh wuxuu yidhi iimaanu biاllah iimaankaa ugu fadli badan wax ilaahay loogu dhowaaday iimaan hadduusan jirin camalna ma ansaxayo iimaanka islaamnimada ugu fadli badan qiila ثuma maada yaa ku xigaayo la yidhi rasuulku salى اllahu wslama wbaaraka calayh iimaanka qaala xajun mabruur iimaanka waxaa ku xiga xaj lagaa aqbalay xaj lagaa aqbalay ayaa ku xiga lambarka ku xiga ah iimaanka ayuu ku tilmaamay rasuulku salى اllahu wslama wbaaraka calayh xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey rasuulku salى اllahu wslama wbaaraka calayh wuxuu ku yidhi maa min yowmin akara min an yactiqa allahu fiihi cabda min annaar min yowmi carafa maalin ma jirto oo ka badan maalinta carafo oo ilaahay dad uu naarta ka xureeyo maalinta carafo xaajigu hadduu istaago ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maalinta ugu ballaaran ee dad badan ilaahay naarta uu ka xuraynayo waa maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala kamaa fi طabaraani sida طabaraani uu mucjamkiisa ku warinayo ilaahay malaa'igtiisa uu ku leeyahay unduruu ilaa cibaadii haaulaa addoommadaydan fiiriya banka carafo taagan jaa-uunii shuchan gubra waxay meeshan yimaadeen iyagoo basaasan ayay yimaadeen saliid looma ogola xaajigu ismarin maayo inta acmaashu ay soconayso catar iyo barafuun looma ogola isagoo basaasan ayuu xaajigu halkan yimid oo addoomadaydii meeshan ay yimaadeen ushhidukum annii qad kafartu lakum waxaan markhaati idinkaga dhigay malaa'igtaydiyey inaan u dembi dhaafay xujaajta meesha isugu timid oo banka carafo joogta oo iyagoo carfaynin oon udgaynin oo basaasan halkan yimid iyagoo naxariistayda rajaynaya dembi dhaafka rajaynaya naarta ka baqaya jannana i weydiisanaya malaa'igtaydii markhaati ka noqda inaan dembigoodii dhaafay garaadahaas waaweyna xajka lagu helaa in ilaahay uu ku cafiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala liiska ahluljannaha uu kugu qoro sharaf ka weynood heli lahayd addunya aakhiro ma jirto sharaf ka weyn oo addunya aakhiro aad heli lahayd ma jirto nebiga salى اllahu wslama wbaaraka calayh wuxuu tilmaamay qofka xaajigaa ducadiisa in la aqbalo yaa allahda xaajigu uu ka leeyahay xajka dhexdiisa way ka qiimo badan tahay ducadu meelaha kale uu ka ducaysanayo qiimo weyn ayay leedahay ducada xajka aad ku ducaysato waxaa ku yimid xadiiskii nasaa'i uu sunankiisa ku warinayey nebiga salى اllahu wslama wbaaraka calayh uu yidhi alxujaaj wاlmuctamiruun wafd اllah in dacawhu ajaabahum wain istakfaruuhu gafara lahum nebiga salى اllahu wslama wbaaraka calayh wuxuu yidhi dadka xujaajta ah ee beytka ilaahay aadayo u socda waa wafdigii ilaahay wafdigii ilaahayow hadday ilaahay baryaan ducadooda ilaahay wuu ka aqbalaa hadday ilaahay dembi dhaaf weydiistaan dembigooda ilaahay wuu dhaafaa subxaanahu wa tacaala wafdi ilaahay ayaa lagu tilmaamay sida loo sharfay
oo loo ixtiraamay dadka xujaaj beyt illaahi alxaraam xujaaj beyt illaahi alxaraam marka ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu camalkaa ilaahay uu ku waafajiyo oo camalkaa ilaahay uu kuu doorto inaad samayso oo haddana ilaahay aqbal kuugu daro ogaaw wax weyn ayaad gaartay qof ayaan leh oo nasiib leh ayaa tahay لأnnahu nabiga salى الlahu وsلم وbaaraka عalayh wuxuu yidhi alxaju الmabruur laysa lahu jazaaء ila الjanة xajka la aqbalay abaalmarin ma leh janno ma ahane janno mooye abaalmarin kale ma lahanuu yihi rasuulku salى الlahu وsلم وbaaraka عalayh xajka maqbuulka ahe laga aqbalay waxaa la doonayaa dadka xujaajta ah dadka cumraysanaya ee beytka ilaahay u socda intaysan xajka aadin hal maalin ama laba maalin qof walba wadaadka ku dhow ama qofka طaalibulcilmiga ah ee ku dhowe deriska la ama guriga la joogta inuu yidhaaho war dhowr cashar iga sii axkaamta xajka si wakhtigu uusan kaaga khasaarin hantidaadana aadan u khasaarin oo camalkaagii aadan iska dayicin lannahu waxaa weeye camal aan cilmi lahayn ma ansaxayo camal aan cilmi lahayn ma ansaxayo haddaadan horay wax u baranin waxaa muhima acmaasha xajka inta lagaaga sharxayo 2 maalmood 3 maalmood qof u tag ii sharx dheh intaadan xajka aadin oo maalkaaga aadan iska khasaarinin leannahu dad badan ayaan aragnay oo xajka aadaya oo markaa acmaashii xajkana intay waddankooda ay joogeen aan soo baranin laakiin diyaaradda intay iska raaceen qof walba uun meeshuu marayo kala qabsanayo meeshuu marayo kala qabsanayo isagoo cumro ku jira oo acmaashii cumradii ku jira ayuu wuxuu arkahayaa masjidulxaraam hortiisa wuxuu arkahayaa dad qamiis ku gashanaya cumradiiu soo xirtay ma cumraysan dad qamiis gashanayo dharkii bedelanaya bacdiisii u ordahaya asna qamiiska u gashanahay war adiga kuuma bannaano cumraad ku jirtaa maadaama cumra ay kuu xidhan tahay cumradii aysan kuu dhammaanin inaad dharka iska beddesho oo dhar tolan aad qaadato oo qamiis iyo surweel iyo funaanad iyo waxaa inaad labisato waa kaa xaaraam adiga kii funaanad bedelanahay waa la bedelanaysa meeshuu u socdo meel laga socday meel u socdo ma garanayo qof dawaafaya hadduu arko dawaafkii isaga raacahay war dawaafkan muxuu yahay aad samaynayso war muxuu yahay waxaana camalkan aad samaynayso laasim marka waxaa ah si hantideednuna aysan u khasaarin wakhtigeennuna uusan u khasaarin waxaa la doonayaa in mar walbaba yacni acmaasha xajka la faa'iidaysto oo laga barto waxaa la arkay dad sidaas oo kale samaynaya oo xajkii acmaashii xajkii ku jiraan funaanadu iska wataa waana nin ragow funaanadu iska wataa camalkii xajkana wuu ku jiraa qaarkood waxaa la arkay saraawiil iska wata oo muxaramaat ulixraam waa xaaraan waxaasoo dhan haddii rag aad tahay waxyaalahaasoo dhan waxay ku jiraan waxyaalaha lagaa xarimay maxduuraat ulixraam ayay ku jiraan lidaalika marka waxaa muhim ah oo mar walbaba laga maarmaan ah inta aadan xajka aadin acmaasha xajka baro acmaasha xajka baro adigoo macluumo haysta oo xoogaa yaroo kugu filan haysto baraarugsan xajkii markaa ka bacdi ah waxaa kaloo mar walbaba muhim ah xoolaha aanu ku xajinayno inay yihiin xoolo xalaal ah xilliganna xalaashii way yaraatay xilligan lagu jirona xalaashii way yaraatay marka beytka ilaahay xoolaha aad ku aadaysid kacbada maalka aad ku aadaysid maal aad ka fiirsatay ha noqdo maal aad ribo ku keentay ama khayaano aad ku keentay ama beec xaaraama iyo ganacsi xaaraama aad ku keentay ama bililiqa aad ku keentay inuu kaaga daro maahane waxba kuu tari maayo xaaladdii aad ku jirtay inuu ku sii wasakheeyo dembi uu kuu sii kordhiyo mooye dembi dhaafkaa laguma helo ducaa aqbalna laguma helo nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay qof labadiisa gacmood u taagaya cirkaa jira yaquulu yaa rab yaa rab rabbiyow rabbiyow dhahayo ya wa madcamuhu xaraam iyadoo cuntada uu soo cunan ay xaaraam tahay wa malbasuhu xaraam lebiska uu lebisan yahay uu xaaraam yahay wa mashrabuhu xaraam waxa uu soo cabay ay xaaraam yihiin fa annaa yustajaabu lah see cibaadadiisa iyo ducadiisa loo aqbalaa
ayuu yihi nabigu salى الlaه وsلم وbaaraka عalيه lidaalika macnuhu yaysan kaa noqonin xajkii un baan tegey oo xaajiyaan ahay macnuhu yuusan kaa noqone maqaasidda iyo ulajeedooyinka xajka laga leeyahay si aad u hesho waa inaad ka fiirsato maalka aad ku xajinayso nabigeena salى الlaه وsلم وbaaraka عalيه wuxuu yidhi in اllaha طayib laa yaqbalu ilaa طayiba ilaahay waa allo wanaagsan maal aan wanaagsanayna ilaahay ma aqbalo maal aan wanaagsanayn ilaahay ma aqbalo oon xalaal ahayn cibaadada lagu samaynayo ilaahay ma aqbalaayo jala jalaaluh marka xajku wuxuu iska leeyahay arkaan iyo waajibaad iyo sunnooyin iyo maxduuraad waxyaalo laga xarimay xaajiga qaybo ka mid ah ayaanu isku baraarujinaynaa in sha allahu tacaala arkaanta xajka markii la yidhaaho bimacnaa arkaantu waa tiirarka xajku uu ku taagan yahay oo hal qodob oo ka mid a haddii lagaa waayo xajkaagii dhan uusan ansixaynin sadaqo kasta haddaad bixiso neef kasta haddaad gowracdo wax kuu buuxinaya ma jiraan haddii arkaanta aad ka tagtay arkaanta xajka alixraam kow marka hore waa xirashada xajka waxaa ugu horeeya inaad niyeysato ood xiratid dee haddaadan niyeysan oo aadan xiranba xajkii ood iska bilowdo un dawaafkii iyo dhagaxtuur iska bilowdid waxba kama ansaxaya rugniga ugu horeeya asaasiga ixraam waa xirasho waxaad arkay xujayda qaarkood oo xajkii dhexdiisii marayo war maxaad soo xiratay ma cumraad soo xiratay ma xajaad soo xiratay maxaad soo xiratay sheekhu xirasho maxay tahay dhexdiiba haddi marahayo dadkan dawaafayaan arkay oo dawaafkii aan dhinacayga ka galay laakiin waxba sooma xiranba oo ma la xirtaa waxba ixraam miyaa jira xajkii oo gebagabo jooga wuxuu ku weydiinayaa kii laga soo bilaabay bilowgii kow su-aalaha laazim waxaa laga maarmaan ah inaanu baranno fiqhiga xajka ixraam waa rugniga asaasiga ugu horeeya waa xirashada xajka la xiranayo la niyeysanayo waxaa sidaas oo kale rugni ah alwuquuf bicarafa banka carafo inaan lagaa weynin maalinta 9 bisha dilxija ay tahay waa inaan halka aan lagaa weynin maalinta bisha dilxija ay 9 tahay haddii halka aad ka maqan tahay bacda duhri salaada duhurka bacdi haddaad ka maqan tahay halka aad iman weyso xajkaagii oo dhan waxba kama jira nabiga salى الlaه وsلم وbaaraka عalيه wuxuu yidhi alxaju carafa xajka rugniga ugu weyn waa carafo inaad timaadid waxaa sidaas oo kale rugni ah tiirarka xajka tiirka saddexaad waa dawaafka la yidhaaho dawaafu اlifaada dawaafu اlifaada waxaa la sameeyaa maalinta tobanaad ee bisha dilxija ay 10 tahay waa maalinta ciidda aan u naqaano maalintaasaa la sameeyaa dawaafu اlifaada maalintaa ka hor haddaad samayso ma kuu ansaxayo 9aad haddaad tiraa dadka qaar xujayda qaar waxay ku leeyihiin markii maka aan soo galayaanba dawaafayba ma dawaaf kalaa jira ku leeyahy maka markuu soo gelayo waa markii maalintii saddexaad ama maalintii afaraad ee bisha dilxija 3deeda 4teedii dawaafkii sunnada ahaa ee dawaafulquduumkii uu xisaabsaday markaas wuxuu kuri waaba dawaafayba war dawaaflifaadihii ma samaynin miya maya horaan usoo dawaafay 100 haddaad soo dawaaftay muxuu kugu taraaya haddii waktigiisa aad ka hormariso dawaaflifaada waa 10aadkaas wey lagama hormarin karo dawaafka marka dawaafulifaada isaguna waa rugni asaasi ah ee arkaanta xajka ka mid waxaa la mida sidaas oo kale sacyiga safaya marwo labada buurood dhexdooda 7 goor la sacyinayo la soconayo waa rugni arkaanta xajka ka mida ee isagana laga maarmaana waxaa la mida sidaas oo kale xalqiga xiirashada maalinta 10aad haddaad doontana tinta waad gaabsan kartaa laakiin xiirashada ayuu ammaanay rasuulku salى الlaه وsلم وbaaraka عalيه waa haddaad rag tahayo ragga waxaa loo sunneeyaa oo fadli badan inay xiirtaan haweenka laakiin xiirasho looma ogola way gaabsanayaan haweenku wax yaray tintooda ay ka jarayaan maalintaa 10aad maalintaa 10aad ka horna xiirasho iyo jarasho iyo maba taaban kartid tintaada maalintaa 10aad wey maalinta la xiiranaya ma la gaabsanayo maalinta 9aad oo 10aad ka horreysay 8aad 7aad 6aad haddaad tin isku taabatid
xaaraamad ku dhacday xaaraam weliba tintu hadday 3 gaarto neefaa kugu waajibay 3 tin haddaa iska jarto maalinta tobanaad wixii ka horreeyay neefaaba kugu waajibaya neef ayaa kugu waajibaya meeshan garku isaga dhegan yahay maalintii tobanaad ka hor dad waxaad arkay garku ku dhegan yahay garku iska tifaayo dad waxaa jirtay moogtahay iska mar walbaba isaga cayaaro garka oo dabeecadoodaba u tahay oo inuu wax rifo maana aan joogi karinba jagu siinahay jannabi siinahay maalintii sagaalaad la joogaa bankii Carafa saddex tiri tobanaan uu dhigay tin meesha meeqa neef ku waajibtay meeqa neef wala fiirso neefku wuxuu ku taam noqdaaba saddex dad gaarsiisid bisu saddex dad gaarsiisid neefkii waa taam noqday wixii saddex ka yarna hal mudwo hal kombo hal tin haday tahay hal kombo laba tin haduu yahay laba kombo saddex haduu gaarana waa neef neef kaamil neef ari ah ayaad gooric markaa lidaalika marka la xiiranayo maalinta tobanaad ama la gaabsanayo haweenkana waxa fadli badan inay gaabsadaan raggana waxa u khayr badan inay xiirtaan nabigu waa u duceeyay sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi saddex goor allahumma arhamil muhalliqiin ilaahu kuwa tinta xiirta maalinta tobanaadka xajka ilaahu u naxariiso qiila wal muqassiriina ya rasuul allah rasuulka ilaahi ragga gaabsadana u duceey qaala allahumma arhamil muhalliqiin ilaahu kuwa xiirta u naxariiso ku soo celi mar kale allahumma arhamil muhalliqiin saddex goor u duceeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi xiirashada marka ayada fadli badan ducadii nabiga aad ku heli sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi waxba haysdeen adigoo madaxaagu maaragtaahay bannaan yahayo madaxa qurdugano madaxii aan tin lahayn aad waddanka u soo dhalinyarada way u badan yihiin waxay ku leeyihiin yaakhu waa gabdhihii aan arkahay annagoo xiiran waddankii uma laaban karno war meeshan ma gabaraa loo soo aado wax ka khayr badan aad raadinaysa mahma ilaahay aad u dhowaato ilaahay adigu baari u noqotid ummaddanana baari kuu noqonayo gabadhaad raadinaysa xataa waa imaanay markaad ilaahay adigu baari u noqotid makhluuqa dhanaa baari kuu imaanay ku jeclaanaya kulligood yaa ilaahay un baari u noqo bis wax walba baari kuu noqonayo markii lambarada ay kaa khaldan yihiin alla ka cabsigana wax walba waa kaa khaldan maayo itijaahii noloshoo dhan isku dhex yaacay mahma alla ka cabsigii lambaro ay kaa maqan yihiin noloshaadii oo dhan ayaa isku dhex yaacaysa itijaah ma yeelanaysa xagga kurbaa ka imaanaysa xagga walwalaa ka imaanaya xagga musiibaa ka imaanaysa xagga balaayaa ka imaanaysa meel walba ood la hadashid iyo qof walba ood la hadashid wuxuu kaa horkeenayaa hankool iyo qodxo iyo weerar uu kaa horkeenaya khalqiga dhanaa cadow kuu noqonay marka mar walbaba haddaad doonaysid furaha iyo sirta nolosha ilaahay baari u noqo miftaaxu اlxayaat wa siru اlxayaat hiya taqwى اllah wاlbiru lilaahi walirasuulih salى اllahu wslam wbaaraka calayh sirta nolosha haddaad doonaysid ilaahay un baari u noqo nolosha furaheedii waad haysataa furaha nolosheedii waad haysataa daalika marka waxaa weeye waa in mar walbaba waxaanu maraynay dawaafkii xalqigii waanu sheegnay xiirashadii iyo sidaas oo kale tartiib arkaanta sida sharcigu u jideeyey in loo kala hormariyo haddaad soo hormarisid carafo istaaggeedii maalinta 6aad ama maalinta 8aad carafo aad istaagtid waxba kama jiraan ixraamka ugu horeeya xirashada xajka waajibaadka xajka waxyaalaha waajibaadka xajka kow waxaa ka mid a alixraam min almiiqaat waa inaad ka soo xiratid dowlad walba meeluu u astaameeyey rasuulku salى اllahu wasalam wbaaraka calayh laga soo xiranayo tusaale ahaan haddaanu Soomaali nahay meesha aanu ka xiranayno xajkeenna ee nebigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh noo asteeyey waa yalamlam meesha la yihaaho yalamlam waxay xigtaa xuduudda waxay u dhowdahay yaman dhul ahaan waxay ku jirtaa xuduudda sacuudiga laakiin waxay u dhowdahay waa meelaha ay iska galaan sacuudiga iyo yaman ay iska galaan waa meesha ahlulyaman maadaama itijaaha yaman inagu aanu ku toosannahay itijaaha yaman maadaama aanu ku toosannahay yamaniyiinta iyo soomaalidu halkaasay ka xiranay laakiin haddii adiga marka hore aad ku hormartid magaalada madiina ee ziyaarada nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh aada hormarsanaysid waxaad ku xugum noqonee ahlulmadiina meeshay ka xirtaan
ayaad hadhow xajka ka xidhanay waa dulxulayfa haddaad marka hore aada ziyaarada nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi ku hormarto meesha ahlulmadiina ay ka xirteen ee nabiguna uu ka xirtay salى اllahu wasalam wabaaraka calayh waa dulxulayfa halkaasaad ka xidhan marka laazim mar walbaba waajibka alixraam min almiiqaat waa in miiqaadka aad ka xidhatid waajibka labaad almabiitu bimusdelifa waa in habeenka tobanaad meeshaa musdelifa aan lagaa weynin habeenka tobanaad walmabiitu bimina waxaa kaloo waajibka saddexaad waa inaad mina haddana aad ku hoyatid mina waxaa lagu hoyanayo saddex habeen ayaa mina lagu hoyanayo habeenka 11aad 12aad 13aad saddexdaa habeen waa in mina aad joogtid oo mina aad ku hoyatid waxaa kaloo sidaas oo kale waajib ah ramyuljimaar dhagax tuurka isaguna waa waajib dhagax tuurka markaa dhagax tuurka jamratulcaqaba loo yaqaano ramyu jamratilcaqaba isaga waxaa la tuurtaa maalinta tobanaadka ah ayaa isaga la tuurtaa hal buur bisaa la tuuran isaga laakiin saddexda maalmood oo ku xigta maalinta 11aadka maalinta 12aadka maalinta 13aadka waxaad isku maree saddexda buuroodba waa tuurane mid walbana waxaad ku tuuri 7 dhagax 21 dhagax ayaad saddexdooda ku dhufane mid walba 7 dhagax ayuu iska leeyahay waa maalin walba maalinta 11aadka 12aadka iyo 13aadka waxaa kaloo waajibaadka ka mida ijtinaabu maxduuraati اlixraam waxyaalaha qofka xaajiga iyo qofka cumraysanaya laga xarimay waa inaad iska ilaalisid ood ka fogaatid marba haddii xajkii aad xiratid oo nawaytulxaji aad tidhaahid ama cumradii aad xiratid waxyaalo ewel xalaal ku ahaan jiray ayaa hadda xaaraam kaa noqonay waxaa xaaraam ka noqonaya atadayub wax carfaya inaad ismarisid ama nin ahaw ama haweeney ahaw wax udgaya oo carfaya in la ismariyo xaaraam waxaa kaloo xaaraam kaa noqonaya cijiyaha inaad jaratid marba haddii xajkii aad soo xiratay cumradii aad soo xiratay cijiyihii inaad jaratid iyaduna waa xaaraam waxaa kaloo xaaraam kaa noqonaya saliid ama dufan inaad ismarisid oo madaxii aad saliidaysatid waa xaaraam jirka kale waad marsan kartaa lugihii iyo gacmihii iyo waad saliidaysan kartaa laakiin madaxa inaad saliid mariso waa xaaraam ama rag ahaw ama dumar ahaw waxaa kaloo raggii khaas ku ah oo xaaraamka ah inay madaxa ay dabooshaan madaxa koofi inaad saaratid ama cimaamad aad ku xiratid waa xaaraan amaa haweenka iyaga waaba waajib madaxooda inay asturtaan madaxa inay asturtaan waa xaaraam iyagana haweenkii waxaa khaas ku ah inay niqaab ay qaataan bacda alixraam markii xajkii ama cumradii ay soo xirteen ka bacdi inay indhashareer ay qaataan waa xaaraam waa inuu wejigu u furan yahay wejigu waa inuu u furan yahay ilaa maalinta ay xalaal noqonayso maalinta tobanaad laga gaarayo oo acmaashii lagu xalaal noqon lahaa ay ka samaynayso waa inuu wejigu u furan yahay idana wejiga inay haweenku ay dabooshaan waa xaaraam marba haddii xajkii iyo cumradii ay soo xirtaan waxaa kaloo sidaas oo kale ragga xaaraamka ah maro tolan inay qaataan xaaraam sida shaatigii funaanadii surwaalkii kastuumadii qamiiskii waxyaalaha raggu inay qaataanna ayagana waa xaaraam waxaad arki dadka qaar xujayda ilaa waa la ysaga bartay oo waddanka markii la joogay waxaa arkay habeenkii wuxuu isku duuduubahayaa marka la seexanayo go-iisii ilaa madaxii iyo majihii madaxii majihii u gashaday go-y waa xaaraam yani madaxa in la dabashaay xaaraam markaad soo jeedid iyo markaad hurdaysid waa isla mid markaad soo jeedid markaad hurdaysid markaad seexanaysid in madaxu kuu faydan yahay marka dadku waxay isaga barteen madaxa in la daboosho xilliga la hurday hurdadii isku diyaarin madaxii qam u siisana madaxii majo waa daboolaya waa xaaraam wey lama ogola markaad hurdada isku diyaarinaysid xasuusnaaw qof xaajiya inaad tahay qof cumra ay u xihan tahay inaad tahay bannayso madaxaaga adigoo madaxu kuu bannaan yahay iska seexo adkaartii aad akhriso
sidaa u seexo marka madaxa isagana daboolashadiisii ragga xaaraam waxaa sidaas oo kale xaaraam ah ee maxduuraat ulixraam ka mida jimaaca wa huwa akbaru lmaxduuraat waxyaalaha xaajiga laga xarimay kan ugu weyn yacni xaaskiisii inuu u tago qofkii xaajiga ahaa waa xaaraam wa huwa mufsid lilxaj kaasi xajkii oo dhan uba kaa fasaadin jimaac haddaad samayso oo xaaskaagii isagoo kula socdaa aada la jimaacdo la seexato xajkii oo dhan wuu kaa buray waxaa kaloo kugu waajibaya inaad gowracdo neef geela waxaa kaloo kugu waajibaya xajkii oo kaa fasaaday isagoo buray inaad dhammaystirto dhibaatooyinkaad isku geysatay fiir isagoo xajkii kaa buray ayaa haddana waajiba inaad sii dhammaystirto neef geelana waa waajib inaad gowracdo xajna kuuma jiro waxaa kaloo waajib kuu noqonaya xajkaa dib inaad ka soo qadaysid waa laga maarmaan marka axkaamtaas inaanu ilaalino waa laga maarmaan waxaa kaloo muhim ah inaanu isku baraarujinno meesha loo socdo waa beytka ilaahay waa meeshii dhulka ugu khayrka badnayd waa meeshii ardada ilaahay ugu barakada badnayd meesha halka dembi lagu sameeyo imaamu maalig iyo kayrkiiba waxay yidhaaheen wuxuu u dhigmaa 70 dembi oo dhul kale aad ku samaysa marka waa inay dadka xujaydu ay is-ilaaliyaan oo kaftanka iyo arrimaha siyaasadda iyo waxyaalaha maalayacniga iyo dembiga waa in la iska ilaaliyo halkaa haddii la tago waa in la isxirxiro waa in la is aruuriyo waa in akhlaaq iyo aadaab iyo anshax lagu tago laguna joogo dhulkaa barakaysan hal dembi haddaad dhulkaa barakaysan ku samaysid 70 dembi uu la mid yahay oo dhulalka kale aad ku samaynaysid xajkaagiina wuxuu noqonaa xaj hayru mabruur lannu xajka faa'iidooyinka lagu helayo waa midka mabruurka ah xajkaaga hadduusan mabruur ahayn oo dembi aad ku samaysay kii aad ka faa'iidaysanayay ma noqonayo midka aad ka faa'iidaysa marka waxaa laga maarmaanaya aadaabta in la ilaaliyo waa in marka meesha dhulka barakaysan aad tagtid waa inaad isi soo hor dhigto meesha aad joogtid maxay tahay horta meesha aad joogtid muqdisho ma ahan meesha aad joogtid war muqdisho ma ahane waa dhulkii ugu khayrka badnaa inta la tago waa dhulkii beytka ilaahay uu ku yaallo waa dhulkii qur'aanku uu ku soo degi jiray waa dhulkii nabigeennu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi ku noolaan jiray waa dhulkii jibriil uu ku socday in badan uu ku socday waa inaad marka qalbiga soo gashatid waa in beytka ilaahay iyo kacbada aragtideedu ay kuu hilow geliso aragtida ilaahay aakhire aad ku arkayso beytka aragtidiisu waa inay ku xasuusiso ilaahay subxaanahu wa tacaala beytku waa inuu kugu abuuro oo uu kugu kordhiyo jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala walidaalika imaamu nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu sheegay haweeney dhulka shaam ka soo xajisay ayaa weligood iyadoon kacbada arkin intay soo socotay oo dhan waxay dhahaysay ayna beytu rabbi aawe beytka rabbigay beytkii rabbigay oon maqli jiray aawey markii kacbadii ay timid aa la yidhi waa kan kacbadii inta aad u hiloobaysay waa tana markaasi kacbadii ay wejiga saaratay oo dhudhunkootay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi famaa ruficat ilaa meyita islaantii waxaa lays yidhi bal kor ha loo soo qaado meesha wejiga ay ku hayso ha laga soo qaado ilaa waa meyd maatat shawqan wa maxabatan lilah hilow iyo jacayl ilaahay ay la dhimatay haweeneyda الشhaykhu الcalaamaةu abubakr الshibliy markuu beytka ilaahay yimid oo beytka ilaahay soo xajinayey beytkiisii macruufka ahaa ama gabaygiisii macruufka ahaa ayuu ka tiriyey wuxuu yidhi haadihi diyaaruhum wa anta muxibu famaa baqaa'u الdumuuci fi اlآamaaqi wuxuu yidhi abubakr الshibliy tani waxa weeye waa beytkii iyo dhulkii barakaysnaa meesha aad joogtid adiguna waxaad sheeganaysay jacayl ilaahay sidee maantaoo kale wuxuu yidhi hal ilin indhahayga ay ugu baaqi noqotaa fasaara yabkii ilaa an adda alxaj waa iska ooyay ilaa xajka uu ka dhammaaday jacaylaad sheeganaysay meeshaad u hilowsanaydna meeshan ooy marka maantay hal ilin inay indhahaaga ku harto macquul ma ahan uu yidhi abubakr الshibliy sidaasaa marka
dhaqanka dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala cadamadiisa iyo heybada ilaahay qalbigooda ay ku weyn tahay sidaasay ahaan jireen dhulkaa barakaysan marka ay yimaadaan in badan waxaan aragnay dad iyagoo carafo jooga bankii carafo maalinta ugu khayrka badnayd maalmaha xajka sigaarkooda iska daaranaya lax dhulkan abaarmoog iska ah oo sigaarkooda iska daaranaya bal meeshuu sigaar ku cabayo fiir goobtii dembi dhaafka uu soo aaday goobtii naxariista uu u soo aaday ayuu wuxuu kala gadoomayaa kintaallo dembi ah iyo wasakh uu kala gadoomaya waa ayaan daro waa nasiib daro marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahayna waafajiyo camalkaas ilaahayna uu qabuul iyo ijaabo ilaahay uu noogu daro subxaanahu wa tacaala وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين مسكين كان على سوق الماء قعنت أتاج بارك الله فيكم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على